saddexda khatar waa kuwa halis ku ah caafimaadkaaga iyo noloshaada. mid waxay ku xiran tahay cibaadadaada iyo alla ku xirnaanshahaaga, midda kale waxay ku xiran tahay habdhaqankaaga nolol maalmeed, ta kalena waxay ku xiran tahay fikirkaaga. kow, cibaado la'aanta. haddaad Rabbi subxaanahu wa tacaala caabudi weydid oo salaadaha ilaalin weydid, waxaad noqonaysaa mid muuqiisu duug yahay, qalbiga ka gubanaya, noloshiisuna ay foolxun tahay oo aan waxba isugu toosin. qodobka labaad, stresska iyo fikirka badan. haddii aad tahay mid mar walba murugooda, walwala, fakera, calool xun, waxaad noqonaysaa mid cimri degdega, sababtoo ah stressku waxa ay badan la dagaalamaa qofka dhamaystirankiisa iyo fikirkiisa saxan. qodobka saddexaad waa dhafarka. dhalinyarada hadda joogta inta badan waxay ku saamleeyaan oo ku soo jeedaan waqtigooda ugu badan ku qaataan waa inay taleefanada isticmaalayaan ama ay goobaha lagu qaxweeyo ay lagu sheekeeyo ay ku raagaan. dhafarku waxa uu dilayaa caafimaadkaaga, maskaxdaada. sidoo kale waxyaalaha hurdada laga faa'iido waxa ka mid ah qof markuu habeenkii seexdo unugyada dhinta ee dhadka seliska ah ayaa habeenkii dib loo cusboonaysiiyaa oo kuwa cusub baa qofka loo soo saaraa. haddii qofku xilliga camaliyadaasi dhacayso oo uu soo jeedo, macnaheedu waxa weeye horeyna qofkaasi waa u cimri degdegaya, caafimaadkiisana wax badan baa iska bedelaya. bishaaro waxaa loogu bishaaraynayaa dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed ee daafaha caalamka joogta in markaska Al-Hidaaya Islamic Center uu diiwaan gelin doono arday cusub. markaskan ayaa waxa uu bixiyaa duruus ay ka mid tahay aasaaska diinta Islaamka sida higaada, Qur'aanka oo hab tajwiida loo barayo, caqiidada, barashada farteena Soomaaliga iyo dhaqanka, iyo in weliba salaada laga saxo iyo waxyaalaha caqiidada ku tacalluqa. haddii aad u baahan tahay waxaad nagala soo xiriiri kartaa lambarkan aan kuu sheegayo +2529054445550. aad baa u mahadsantahay.